وإن سلام دمانتين دمان أمد الصوماليات ملك سيجوكتان وحين إليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكو سلامي دمانتين عول وأكو سلامي وحرطة موضوع عساء وجه داما ما تحن سوق لي دباتنيس من والبوحي دبيت أفورك كنت الله بسم الله كم ماذا وأكو سلامي محمد حسن أستاذ وأكو سلامي الموضوع عساء وجه داما وحن سوق لي أمد الصوماليات ملك استاي جوكتو وحا شراء دباتوين هستا أو ضدك الصوماليات هستا dhibaatada dadkeena haysta waxaa ka mid ah in shacabkii Soomaaliyeed ku dhaqanaa deegaanada SCC ay laga diiday shilinka Soomaaliga ahaa oo ay ka shaqeynaysay saa ogtihiin deegaanada SCC ama Soomaaliya sanaag kama shaqeyso shilinka Soomaaliland kama shaqeeyo waxay ku caanamarayeen lacagta shilinka Soomaaliga in ka shaqeeyo lacagtaas ama deegaanada Buuhoodle iyo Laascaanood iyo deegaanada hoostaga كما شقيو لعقتا Somaliland كما شقيو ساوكتين maalmaha markii sixir baraf ka dhacay Puntland ayaa waxa shacabka Soomaaliyeed ama Puntland deegaanadeeda markii la xaliyay waxa sixir baraf uu soo gaaray gobolka Sool iyo deegaanada kale sida Buuhoodle iyo deegaanada hoostaga iyo Laascaanood iyadoo saas ay toosin Soomaaliga aan la qaadanin lacagta dahab iyo saad ay shacabka Soomaaliyeed isticmaalayeen ayaa waxa dhacay in ay Somaliland maanta warqad soo saartay warqadaas oo ah in gabi ahaanba wax $100 ka yar aan la isu diri karin taas oo ah dhibaato weyn dadka $99 qof uma diri kartid oo saad ama dahab hadaa sare qof $50 u dir uma diri kartid $60 uma diri kartid dadkii dhibaatada sahaysata deegaanadii maanta waa la xiriiray dadkii ii sheegeen dhibaato weyn baa dadka haysata waxaan loo baahan yahay dhibta markay dhacdo in laga hadlo dadka wax karadka culimada garaadada ugaasiyada islaamada in dhamaan ka hadlaan haddaan dhibaato balaayada daba la qabtay leedahay furul la qabtay leedahay daba la qabta ma laha dadkaas alla hore ma haysan dawlad rasmiya ama deegaanadaas haddana waxaa dhacay sicir barar oo hadda imika isla qof $50 u dir oo saadkii ugu dir ama dahabkii ugu dir ama $60 u dir ma diri kartid $100 dadku $100 ma wada haystaan dadkii $100 ma wada haystaan dhibaato dadka haysta dawladda Soomaaliyeed oo xoog loo halka maanta ka jirtaan ma arkaan dawladda Soomaaliyeed marka shacabku waxa loo baahan laga hadlo oo wax karadku ay ka hadlaan iyadoo deegaamada ay ka jiraan abaaro oo ay ka jiraan waxyaalo kale oo maxaan ku sheegay biyaan ay ka jirto colaad ay ka jireen ayaa hadda waxa loogu bedelay in la yiraahdo qofkii saadkii $100 ma qaadan kartid wax $100 ka ma diri kartid $99 iyo bar ma diri kartid taasna waa dhibaato dadka Soomaaliyeed ee halka degan soo heetay Somaliland shilinka kama shaqeeyo shilinka Soomaaliyeed kama shaqeyn maayo dahabkii ma ka shaqeynayo ama saadkii wax $100 ka yar kama shaqeyn baa meesha leeyahay dadkii markaa dhib haysta waxaan u soo galay inaan ka qayliyo dhibka dadka haysta qof walba wuxuu dhibay dhafoorka ku taala baa leeyahay dadka Soomaaliyeed ee halkaas degan saa ogtihiin deegaanadaas waxa la yiraahdaa mar Puntland baa xukunta mar Somaliland baa xukuma mar dawladda Soomaaliya hoostagan waa dad dhiban marka in dadkii loogu daro intii ay ka caafimaad qabeen in la yahay dahabkii ma shaqeynayo ama EFC ma shaqeynayo waa dhibaato xoog leh dadka haysta marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed aan u sheego aan u sheego inay qaataan shilinka Soomaaliga ay xoolahooda ku iibsadaan lacagtii 500 ahayd ee dadka ka shaqeyn jirtay shargaray horta gaarsiye dadka gaarsiye bal shargaray hal mar adeeg oo farba shargaray baa arkan dadku islaamada iyo arkan garaadada arkeen bal shargaray madaxda artay marka dadka dhib baa haysta waxaan u soo galay caawa in shacabka Soomaaliyeed laga qaylisiyo saa ogtihiin Puntland way xalisay dad oo fariistay way xaliyeen shalay waxay soo gaadhin lacagtii Buuhoodle lacagtii in laga qaadanayn shilinka Soomaaliga ahayd
maantaan la xidhiidhay lagama qaadanayn laascaanood lagama qaadanayn wirwir lagama qaadan deegaamada hoosta oo dhan lagama qaadanayo markaa dadka dhib baa haysta dadku waxay ku caafimaad qabeen inay xoolahooda ay ku iibsadaan lacagta shilinka Soomaaliga ay ku iibsadaan shilinka Soomaaliga ma shaqeynaya dadku dollar ma haysto qof dollar haysta ma jiro dollarka uma ana dhan America ma nihin ana shilinka Soomaaliga aan isticmaalanay 500 bir dhaweed ka shaqeynaysa 500 kontanka shilinka Soomaaliga ka shaqeynaya deegaamada bardhaweed wax macquul ma aha ilaa iyo shilinka Soomaaliga wax ka shaqeynaya deegaamada xadka Ethiopia ka shaqeynaya oo maxaan ku sheegay deegaanada hoosta ilaa wardheeb ka shilinka Soomaaliga ka shaqeynaya wax macquul ma aha waa in laga qayliyaa deegaamadaas Somaliland maanta odayaal baa laascaanood ku shiray warbixin soo saareen macquul ma aha leeyahay dadkii cunaqabatayn baa ku dhacday sixir baraki deegaamada soo gudbay dawlad rasmi oo ka talisan ma jirto wax macquul ma aha shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa garaadada iyo suldaamada iyo culimada adduunka waxaan u sheegayaa in dadka wacyi geliyaan shilinka Soomaaliga ay qaataan xoolahooda ku iibsadaan anagu dollar ma nihin America ma nihin qowl Mareykanka ma nihin dad Soomaaliyeed baana wax macquul ma aha in shacabka Soomaaliyeed dibka noocaas kala loo geysto mana suurtagelayso waxaan u soo galay caawa barnaamijkan dadkii oo dhiban oo maxaan ku sheegay waxba haysan in la yiraahdo shilinka Soomaaliga aan la qaadan maayo oo maxaa rabtaan dollar meeqa rabtaa $100 ka ima diri kartid qof ay $10 u dir uma diri kartid $5 qof u dir uma diri kartid $10 u dir uma diri kartid $20 u dir uma diri kartid $100 caqligaas caqli shaqeynaya ma shacabka Soomaaliyeed halka degan wuxuu u baahan yahay allo dawlad rasmi ah haysan in wax laga qabto loo baahan arrintaas waa arrin aan ka xanaaqay maanta dadkii maanta wala xiriiray maxaan ku sheegay qof baa meel imaanaya wuxuu isleeyahay $10 wax ku iibso ama dukaan soo galaya $10 wax ku iibso 100 kun oo Soomaali baa haysta waxa laga iibsan maayay wuxuu soo orday wuxuu sidii $10 ku iibso laga iibin maayay $100 dir dadku $100 baa haysta dadku qof walba $100 ma haysta mid qadaama daragaan ba meesha jooga arrintaas waa wax laga qabtaa arrintaas shacabka Soomaaliyeed waa inay istaagaan waa in deegaanada Puntland u istaagaan Somaliland wax ka qabarta waa inay istaagaan dawladda Soomaaliya waa inay istaagtaa wax macquul ma aha dadka Soomaaliyeed in halkaas laascaanood wax laga qaadanay shilinka Soomaaliga weligeed shilinka Soomaaliga laga qaadanay markii Puntland maalinta sixir baraf ka dhacay baa la yiri ma shaqeynayo shilinka Soomaaliga ma shaqeynayo dadkii dhib baa haysta ilmi casayaha waxay ku haysan ma haystaan oo ama ku iibsan ninkii Israa'iil dukaan ka soo iibso adeeg yar $5 ku soo iibso ila dadku $100 ma diri karaan ka soo iibso ma jirto dhibaato dhacday ilaahay dhibaatada naga saaro ummadda Soomaaliyeed ayaan leeyahay barnaamijkan gaarsiiya dadka gaarsiiya qof walba share garee waa arrin dhibtay dadkaas ma haysan dawlad rasmi ah oo Soomaaliyeed caafimaad fiican ma haysan waxbarashadoos ma haysan haddana waa hadda bakti maxaa yeelay in qofkii uu baktiyaba oo gaajo la baktiyo ma meesha imaanays markuu qofku xoolihiis muxuu ku iibsanay qofku shilinka Soomaaliga adoo lacag milyan haysta aan wax ku iibsanayn arrintaas arrin macquul ma oo in culimada adduunka ka hadlaan وين وحكرت كهلان وين جارادو كهلان وين واسدو كهلان وين سلامدو كهلان وين للسومة ده حل رادية حل إن الراديو أنا أمريكان منهن العق يورو ما يستعمله العق دولار ما يستعمله نبكون والقيم الشركة ده ما كده دولار بقى في سوى على وب حنايا أدب قيم نبكاس ولا كاس نقيم مد الصومالية تذكر بهسته ومدي إلهي دبا هيستا هدادن كهلدنا بلاي هدادن كهلدن دباتدا هدادن كهلدنا إذا كوغان سام جرت وراد قف فرد ورحتان إسرائيل دور مدري هرت $100 dir إلا $100 dir وحاس wax macquul ma ahniyo wax macquul ma aha dadkaas waxa lagu talagalay in la baabiyo hadday saa ku socoto oo qofkii lacag haysan wax laga iibsanayn
oo shirkadahan waa in shirkadaha marka dambe waxay noqotaa shirkadahan in meesha lagu galo dukaamo xaruntooda lagu galo oo la burburiyo noqotaa shirkadahan dhibkaas shirkadahaas uga yimi waxaan electroniga bixiya ma ogola shin Soomaali hadda sare wax ka iibsan ma ogola dollar si dadkii dhib haysta wallaahi billaahi saacad ku socoto dhibaato weyn baa dhacaysa saacad ku socoto arrintaas aan leef ma badni badan oo leef ma soo galo laakiin markaan arko dadka iyagoo dhiban oo ku khasbana inaan iska aamuso damir xumadayda inaan iska aamuso waxay gashay inaan dadka tuso dadka Soomaaliyeed soo badhigo tuso ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa arrinkaas maanta waa ka xumaaday ilaa shalay waa dhegeysanayay galabta waa la xiriiray dadkii waxaa la qofkii oo haysta lacag shilin Soomaaliya uusan sonkor iibsan karin oo bariis iibsan karin oo daqiiq iibsan karin haye deegaanada Puntland maadhow baa sixir bara ka dhacay waa la xaliyay dowladda way istaagtay Puntland way istaagtay deegaanada shay Somaliland kama jiraan waxaas oo lacag shilin Soomaaliya baa la qaataa haye waa deegaamadan dhexda ku jira haye qofkii lacag buu haystaa wax ku iibsan kar maayo $50 baa ugu jirta EPC ama saadka ugu jirta wax ku iibsay ma iibsanayo $100 iidir taanu $100 ma haysto $100 anu ma haysto war gaarsiye waa sadaqay gaarsiye dadka gaarsiye sheer garee cali waa ku salaamay saaxib gaarsiye sheer garee ummadda Soomaaliyeed u gaarsiye dadka dhib haysta haya waxaan haystaa $200 Soomaaliya haystaa war dukaano waxa ka iibi waxa ka iibin maayo haya $10 baan haystaa waxa ka iibso oo shilinka oo dollar oo saada haystaa ma haysto ka iibin maayo haya maxaa ku noolaanaya isha qofki dollarna waa haystaa saadna waa haystaa ama EFC waa haystaa shilin Soomaaliya laga qaadan waa muxuu qofku noolaanaya isha muxuu ku iibsanaya leeshe isweydii waa su'aal taale waa su'aal adiga hor hologanaysa waa hadda Somaliland la ascaanada xukunta waa inay wax ka qabataa arrinkaas waa u sheeganaa wasiirada waa u sheeganaa iyada xukunta haysaad gacanta ku haysa waa inay wax ka qabataa arrinkaas haddii kale dhibaato taala odayaasha Puntland waxaan u sheegayaa inay arrintaas wax ka qabtaan waa dhibaato soo hoyatay waa dadkaaga iyo baqtin ma firsan kartid ama ma daawan kartid haye $99 ma diri kartid dukaan baan u iibin waxaan rabaa inaan iibsado sonkor inaan iibsado suul $100 iidir deena $100 soo ugu iibsado ish shirkadii baan rasiy haye lacagtii qof dukaamadii maanta la socod waa la xira dukaamadii la socod maanta waa la xira inta badneed haye qofku muxuu ku iibinayaa qof baa u soo galaya haye qofku wuxuu dhahay $10 baan wax iga iibso $10 baan haystaa wax iga iibso waa diid waa laga diid haye $100 maal Soomaaliya haystaa wax iga iibso ma ka iibinayo dukaankiina waa xiran yahay meel wax laga gato dadkii mala marka dadkii dhib haysta kama aamusi kartid dadka Soomaaliyeed oo dhiban kama aamusi kartid waa arrin la yaab leh waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto arrintaas aan soo galay maanta warkuna hadduu hal yahay laba lagama dhigo dhibkana waxaa noo keenay shirkadahaas shilin Soomaaliga wax ku iibsan jirnay shilin Soomaaliga wax ku gudan jirnay shilin Soomaaliga iyagaanu xoolaha ku gudan jirnay shilin Soomaaliga sokorta ku gudan jirnay shilin Soomaaliga dharka ku gudan jirnay shilin Soomaaliga saacada ku gudan jirnay balaaya markay shirkadaas noo timi waa shirkadaas markay noo yimaadeen oo leeyahay waxba mobile lagu shooyaa dhibka waa dadku mobile ma haystaan waaye dadka xoolo dhaqatada mobile ma haystaan wuxuu yaqaanaa lacagtaas shilin Soomaaliga oo ka la isticmaalay haye war sheer garay arrintaas dhib baa meesha ka soo wajahan haye
niman dollar haysto makiinad dollar ku tirsanaya dollar bay makiinada ku tirsadaan shacabkiina waa dhiban dollarkaasuu ku tirsanayaa dhararab maxaan kugu sheegaya shin soomaaligiisa u rabaa inuu ku tirsado shirkadaha waaweyn haddaad istiraada meel wax ka iibso dollar waxaan uma ogola makiinadaas ku tirsanayaan electronigas isticmaalayaan no waddankiiba wuxuu noqday gobol mareykan ka tirsan waddankii soomaaliyeed gobol mareykan ka tirsan marka war mobilkaas waa imisa $100 shaarkaas waa imisa waa $20 saacad waa imisa waa $20 dhigahaas waa imisa waa $4 shin soomaali maya inta marani haddana sheekadii waxay isu bedeshayba in la yiraahdo maxaa la yiraahdo no ma shaqeynayso shirkadda ma shaqeynayso oo dadka Soomaaliyeed wax laga iibsan karo maanta ninkii haysta $80 oo ay mobilka u jirto lascaanood waxa kuma gadan karaa lay hay qofkii milyan lacag haysta waxa kuma gadan karo baahi buu la fadhiyaa caaw culimadu waa in wax ka qataan kaas culimadu waa inay u istaagaan waa in cuqaashu u istaagtaa waa in waxgaradku u istaagaa arrinkaas hadduu saa ku socdo dadkii waa baktinayaan dukaamadu waa fadhiisanayaan dhibaata dhacas muqdishona ku socotaa xaqiiqo waa in shin Soomaali maadho laga qaadi doonaan waa arki doontaan gobolada dhaxna lagama qaadanin baraxaas isma reeb tag koob shaada turtan waxa turas koob shaada cabto waxa turasa point 1 turasa sura point 1 turade ama sura point 2 turade ta koob shaada hay shin Soomaali waa warqaaya dawladda shabaab mustawacin marka dhibaa taagan shin dadka Soomaaliyeed saadu ku socdo inagu Mareykan ma nihin dad Soomaaliyeed baan nahay waxaan rabnaa waddankeena inaan hagaajisano waddankan waxaan rabnaa inaan wax ku qabsano dad Soomaaliyeed oo caawa baahi la fadhiya meesha jira ama gaajo la liit oo lacag haysta wax ku gadan kareen hay aw dawladda Soomaaliyeed arrin baa ka dhacday meesha dhibaato baa ka dhacday waxaan leeyahay waa damirkii maanta way siin waayeen iska aamuso caawa seexdo ummadda Soomaaliyeed ay daawanaysaa haddana waxaa leeyahay leefan uma badni badanaaba laakiin sheer gareeya intii hadda ku jirta gaarsiiya madaxda luqyada ugu dira ayaan leeyahay wax oo laga fadhiisan kara maaha waa arrin aad aan u cambaarayna arrinkaas waxaa shirkii lahayd jidka ma qosta Soomaaliya kuma maada tahay caawa hadduu baahan yahay ma fadhiisanis adiga ma fadhiisanis dhibaata ay haysata dhibaato xoog leh dadkeena ku soo wajahan haddaan wax laga qaban أنا إثيوبيان منهن كينيان منهن جيبوتيان منهن dad Soomaaliyeed baan lacagtaasan qaadanaa shan Soomaaliga bal dukaan iyo shilin Soomaaliga qaadan maayo intuu socdo ay sheeg marka waxaan ii sheegayaa ummadda Soomaaliyeed anigoo garaadkii aan la hadlay maanta waxaan ii sheegayaa arrinkaas waa arrin laga xumaado gaarsiiya siciidani u dira madaxweynaha Puntland u dira madaxweynaha Somaliland luuq ugu dira madaxweyne farmaajo luuqa ugu dira ra'iisul wasaare roobla ugu dira luuqa ugu dira xildhibaanada deegaanada matali meeshii karta xildhibaanka hadlaya maqash maalinta la doortaa kugu dambaysa maalinka xildhibaan la doorto uu soo baxo aa kugu horreysa arrin siyaasad ma arrintan maaha siyaasad waa arrin lala yaabo oo laga xumaado oo qofta miirna uu ka xumaado arkaas waxaa adiga haddaad dollar haysato haddaad dollar akoonkaa ku haysato nin shilin Soomaali baan u haystaa shilin Soomaaligaasaan isticmaalaya anigu ninka caqligiisu si ilaahay baan kugu dhaariyay ninka caqligiisu maanta $100 wax ka yar lagama diri karo saadka adeega saadka ninka Soomaaliyeed ee muslimka ee sheeganaya ee maanta $100 wax ka yar lagama diri karo adeega saadka ama dahabka ama gooliska ilaahan kugu dhaariyay ka war ninkaas ka war aw dollar hadaa haysto anu dollar ma haysto mobile ma haysto ay mobile ma haysto hooyada Soomaaliyeed ee miyiga joogta magaalada joogta ciyaalka iskuulka shin Soomaaligaas la isticmaali jiray waliya
سقاشن يستقال دولار سقاشن يستقال دبع استقال مدة دي كرتد بالي بقول دولار هدون هاي وحكومة بسكرت لا هنقول عليك ورا أركاس تمير ملانا هذا أركاس أرن تمير مية هذا بلان واحد لسه هو شيء بلان هوري ما له قدرت واحلس وحيد يربح هذا الدمان وحاس وحس عن يما بلاي أنا وحينوتي بلاي وحينوتي ما أنت شركة سوي ما دين ذيك بلا بحنية وحبا ساعتي وحبا في سي وحبا كنا بلاي ما أنت سومالي وت لب ما أنت سومالي ويب لب كلام ينوم ما وحلو دول قادن كلام وحل عقبالي كلام ماها أرنكاس أرن نجح ما دوي أنا وسياسات كهل منه وحكل كهل منه وحن كهلنا أرنكاس كهلنا أرنكاس أنكهلنا ما نقول دول قادن أرنكاس وحل نجح ما دوي أرنكاس صورت كلام ما بقول دولار إي في سي حتى سنكر كذا نسي بقول دولار بقولاني هذا بريس كذا نسي بقول دولار بدكوي بسني وحصرت كلام ما odayaasha la socdo inay kacaan inay buuho la kacaan oo inay dadka deegaanka ku caawa inay wax qabsadaan arin loo dul qaadan kara ma arkaas ay $50 $50 ma diri kartid qof wax ku imsan kartid bil aqliga ninkaas sii fili bil Puntland baa maarud laantay Puntland baa maarud waxa soo saartay qof $10 wax ka yar ma diri $10 la qaatay $10 xitaa waa macquul كم بقول $1 waa صار ما shirkadii adeeg bixinay هي كشاكة أرن معقولة مت $8 بنا هستعمل تقويم بسنكرة لا مليون شو سمالية تقويم بسنكرة بقول كون شو سمالية تقويم بسنكرة ما عقويم بسنة إيش والله هتساق سرعة الشركة ده لأديك بخاب بحنا إيه كشقيني ودين أديك كشقيني ديجا ناس خبالو ما تود مقر سيما إسلاميين كلاس عاود كالي وجوبنا بدين أتنوين كوتشيلنا بدين هتساق سرعة وحصورت قلنا معها dadku $1 ma haysto dadku deegaano $1 ma haystaan dadku waa Soomaali shay Soomaali baan ku qadanaa haye nimankan $1 intay bangiyada furteen $1 arursanaya oo shay kasta $1 waa in la joojiyaa adeegyadaas waa in la joojiyaa adduunka meel ay ka shaqeyso adeegaas ma jiro aan Soomaaliya ka hayn ma jirto mana socono saarikaas wax soconaya maaha halkaas ma soconayo waa in ummadda Soomaaliyeed ay jirtaa waa in la banaan baxaa waa in laga dhiidhiyaa hadday soo socotaa mid daran baa soo socota muqdisho ku socotaa gobolada dhex waa soo dhaaftay Puntland hadda wax kameys $10 waa qiimo u dejisay waa habeys haye reer Laascaanood iyo reer Buuhoodle caaw maxay haystaan waa su'aal laga fadhiyaa adiga وجوابتي مدن جوابتي اللي قرب هاي نبى نايف عليه سوق حيصير يجيب ماي حول القتل حول يجيب ماي نبى جيل سوق حيصير جيل يجيب ماي هاي نبى سوق حيصير علي اللي يجيب ماي لا سوق حيصير يجيب ماي وردكانو بريس جيبي ما يقاهتها $10 baa haystaa ma ka iibinayo $100 keen ma $100 ma haysto $200 haystaa ma ka iibinayo hay 2 milyan Soomaaliya qadi hagiyo ma ka iibinayo haddii $100 diri wax ka iibin maayo ka sheeke arrinkaas balad u qaadanaya ilaa ku dhaadi waa su'aal jawaabteeda laga fadhiyo Garcia madaxweyne farmaajo Garcia ninka la Saciid Cabdullaahi Dani Garcia madaxweynaha Puntland Garcia madaxweynaha Soomaaliya Musabix Garcia wasiirada ka soo jeeda meelaha xildhibaanada Garcia wax garta Garcia arrinkaas waa arrin aan cambaarayno laga xumaado deegaamada dadkaas waa inay shilinka Soomaaliya qaataan warkii waxaan ku soo gabagabeynayaa dadkaas waa inay qaataan lacagta shilinka Soomaaliga waa inay qaataan waxna ku iibsadaan arkwaytaas أرسل warkii waa soo gabagabeynayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa waa in dadku shiraan waa in la shirkadaha sidoo hore lagu soo celiyaa haddayna EFC waxaan la iska dhaafayn iyo adeegan ii sheegay saadka la iska dhaafayn
iyo dahab waa in sidoo lagu soo celiyaa dadka reer buuhoodlow idinka alla horaba dowladda soo ahaa idinkaa dowladda soo ahaa alla horaba dowlad kale ma idinma jooga meesha dowladdiina soo ceshada rasmiga ah ee waxgaradka ah ku salaamay saaxiib baarax ku salaamay saaxiib waa kaa qaaday cawiil ku salaamay dhammaantiin arrin rasmi aan ka hadlayaa arrin anugu kama hadlo arrin waxaan ka hadlayaa rasmiya oo saxa aan ka hadlayaa ummadda soomaaliyeed aan u sheegayaa marka waxaan leeyahay ilaahay tawfiiqda hana waafajiyo sidii roon alla hayna solinsiyo ayaan leeyahay arrinkaas waa arrin loo dulqaadan kara ma aha arrinku wuxuu ku saabsanaa ciwaanku caawasa arkaseen wuxuu ku saabsanaa deegaanada SCC oo lacagta shilinka Soomaaliya laga qaadan maayo lacagta Somalilandna aysan soo gaarin boqolkii dollar telefoonka lacagta la isku diriyeen $100 wax kale isma diri karo arrinkaas oo cabraan ku saabsanaa si ciwaanka arkaseen waana arrin xun oo laga xumaado madaxweyne Muuse Biixi madaxweyne Siciid Deni madaxweyne Farmaajo waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ha loo turo arrinkaas ha la iska kaashado arrinkaa balsoon la isla kaashado dadkaas alla hore waxay ku nabad qabeen lacagtooda shilinka Soomaaliga ay ku nabad qabeen dadkaas ay wax godanayeen nimankan waxaan leeyahay shirkadahan isgaarsiinta leh intaana wax naga soo yeedhin arrinkaas ku laabta waa ognahay arrinkaas ku laabta wax badan baanu qarinaynaa aan rabno bannaanka inaan keena marno isku laabta arrinkaas ku laabta qof badan $10 u diri karin $200 u diri karin $50 u diri karin $100 dir qof walba $100 ma haystaa jeebkaad ka wulush jeebkaagaad ku xisaabtanta khayr baad rajaynayaa dhammaantiin adduunkuna EVC meel kama shaqeeyo meeluu ka shaqeeyo ma jirto ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay khayr baan rajaynayaa waa in laga soo jawaabo arrinkaana gaadhsiiyo qof walba mashruuciyada waarkaana waa inuu ugu diraa luqyada mal wax loo dulqaadan karaa ma annaga u hadlana dadka khayr baan rajaynayaa dhammaantiin shirkadaha isgaarsiintana waa xishooda aan leenahay wax badan ma banaan keeni karnaa shirkadaha isgaarsiinta xishooda waa inay xishootaan dulqaadka waa naga dhammaaday markan suurtagal maaha shirkadaha isgaarsiinta isku xishooda dib isku laabta aan leenahay intaan wax kale naga soo yeelin aanu qarinano aan leenahay dadka deegaanadaasna ha tashadeen dadka deegaanadaas iyagaa isku dowladda ciduma rabta ilaahay baa rabaa ha isku tashadeen dadka deegaanadaas aan ka hadlaya aan kusoo qarin ciwaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wagaraadkiyo idin leh gaarsiiya nimanka dhergaya hoteelada jiifa xildhibaanada gaarsiiya dad Soomaaliyeed baa deyn laga cafinaya deyntu aawa deynta la cafinaya deynta la cafinaya maalin walba waxaad maqashaa Soomaaliya waxa loogu daqay intaas oo lacaga gargaar meel gaaraya maarad khayr baan rajaynayaa dhammaantiin tawfiiqan Allahna waafajiyo waa ka soo hadlayaa berina video ku xiga barnaamijkan daawada ayaan leeyahay intii hadda ku jirta waxaan leeyahay share garay ayaan leeyahay arrinkaasna arrin loo dulqaadan kara ma ka aamusan ilaa intay socota ma ka aamusano hooyo Soomaaliyeed caawa $50 haysata wax ku iibsan karin $50 wax ku iibsan karto hooyo Soomaaliyeed caawa $2 milyan oo Soomaaliyeed haysto deegaamaas wax ku iibsan karto caawa leh lacag kale ma haystaan dollar ma iyagu Mareykan maaha mad kale maaha haye intuuna war naga soo yeelin shirkadaha isgaarsiinta xishooda digniin baan insiinanaa xishooda intaana wax soo badhigin xishooda ha xishoodeen shirkadaha isgaarsiinta ayaan la hadlaya ha xishoodeen waa ka leexleexananay ha xishoodeen dadka Soomaaliyeed ha u tureen dadku waa Soomaali shin Soomaaliga ay qaado khayr baan rajaynayaa dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed intiina ku jirta sheer gareeya waxaan leenahay aad baa u mahadsantihiin
tawfiiq Allah noo waafajiyo walaalkaayo ku dhaceenna haddaad aragto waa loo nasteexayaa ama dadkaagiyo dhibaato aragtana waa laga hadlaa cadownimo in lala aamuso maaha culimadu in aamusta maaha way caaqiladu aamusaan maaha sulaamadu garaadadu in aamusaan waa in la hadlaa aad ba mahadsantiin ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khayr ma dhammaantiin idin rajeynayaa barnaamijkan share gareey gaarsiiya madaxda luqada ugu dira waa mahadsantiin